السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada dalab media waxaan idin la wadaagi doonaa xiisada colaadeed ee awdal iyo salal dhaqdhaqaaqay caawa ka socda duleedka Gaarisa jabhadda Toroboore oo heegan gashay iyo cabsi ka taagan deegaanka Heemaal. Soo dhawaada haddii aad inagu cusub tahay channelka subscribe inoo saar muuqaalka inoo like garay asxaabtaada la wadaag aragtidaadana inoogu soo gudbi qaybta faallada. Mahadsanidin. markale habeen wanaagsan daawadayaal warbixintan dheer waxaan ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay gobolada Awdal iyo Salal halkaas oo saacadihii la soo dhaafay ay ka jireen dhaqdhaqaaqyo ciidan abaabulo cusub iyo warar isi soo taraya oo muujinaya in xiisadu wali aysan degin. wararka laga helayo halkaasi ayaa tilmaamaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo duleedka deegaanka Geerisa iyadoo sidoo kale ay soo baxayaan xogo sheegaya in jabhadda Toroboore ee beesha Gadabuursi ay gashay heegan buuxa. sidoo kale waxay soo taraya warar ku saabsan cabsi laga dareemayo deegaanka Heemaal halkaas oo dadka deegaanka ay ka walaacsan yihiin suurtagalnimada in mar kale uu dagaal ka qarxo halkaasi. waxaa intaas dheer warar sheegaya in 2 nin oo safar ahaa laga dejiyay gaari ay saarnaayeen kadib markii ay joojiyeen ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin jabhadda Gadabuursi. dhinaca kale waxaa sidoo kale la hadal hayaa fariin adag oo la sheegay in ay jabhadda Ciise u dirtay dhinaca Heemaal. wararka ugu badan ee soo baxay waxay ku saabsan yihiin dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemay hareeraha deegaanka Geerisa ila deegaanka oo ku sugan halkaasi ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ay halkaasi gaareen kooxo hubaysan oo kala duwan kuwaas oo la sheegay inay xoojinayaan fariisimahooda. dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen dhaqdhaqaaqyo gaadiid iyo ciidan abaabulan oo iyaguna halkaasi si aan caadi ahayn loogu daabulayo taasoo sii kordhisay walaaca shacabka. inkastoo aan la soo sheegin dagaal rasmi ah oo halkaasi ka dhacay caawa haddana dhaqdhaqaaqyada socda ayaa muujinaya in labada dhinac ay isku diyaarinayaan xaalad kasta oo soo kororta. dad badan ayaa ka baqaya in haddii xal degdega la waayo deegaankaasi uu noqon karo goob dagaal. wararka kale waxay sheegayaan in jabhadda Toroboore ee beesha Gadabuursi ay kordhisay heegankeeda. waxaa la sheegay in ciidamo dheeraad ah lagu ururinayo goobaha ay hore ugu sugnaayeen. sidoo kale waxaa jira abaabul ay bulshada deegaanka sameynayaan si ay u taageeraan dhinacyada ay la safan yihiin. heegankan ayaa yimid xilli ay sii kordhayaan wararka sheegaya in labada dhinac ay isku kalsoon yihiin awoodooda militari. dadka falanqeeya arrimaha amniga ayaa qaba in haddii abaabulkaasi sii socdo ay adkaan karto in xaaladda lagu soo celiyo wadahadal degdeg ah. Heemaal ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga hadal hayo caawa cabsida xooggan. wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in dadka deegaanka ay bilaabeen inay muujiyaan walaac xooggan. qoysas badan ayaa la sheegay inay ka baqayaan in dagaal ku soo fido deegaankooda. ganacsiyada qaar ayaa la sheegay inay xireen albaabadooda xilli hore. waxaa sidoo kale yaraaday isu socodkii gaadiidka. dadka deegaanka ayaa ugu baaqaya dhinacyada inay ka fogaadaan wax kasta oo horseedi kara dagaal. qodobada kale ee muhiimka ah ayaa waxaa la hadal hayaa wararka sheegaya in 2 nin oo safar ahaa laga dejiyay gaari ay saarnaayeen. sida wararku sheegayaan kooxda gaariga joojisay ayaa baaritaan kadib waxa ay ka dejisay labadaasi qof. ilaa hadda lama hayo war rasmi ah oo xaqiijinaya sababta labadaasi qofood loo dejiyay iyo sababta loo qaaday tallaabadaasi. sidoo kale lama oga halka loo qaaday ama waxa xiga kadib. arrintan ayaa si weyn loogu faafiyey baraha bulshada iyadoo dad badan ay dalbanayaan in si rasmi ah loo caddeeyo waxa dhacay. warar kale waxay sheegayaan in jabhadda Ciise ay dirtay fariin loo farsirtay digniin. waxyaabaha lagu sheegay fariintaasi ayaa si weyn loogu faafiyey baraha bulshada. si kastaba ahaatee ma jiro war rasmi ah oo madax bannaan oo si buuxda u xaqiijinaya dhammaan qoraalada la isla dhex marayo. khubarada amniga waxay sheegayaan in fariimaha noocan oo kale ahi ay kordhin karaan xiisadda haddii aan si taxadir leh loo maarayn. marka guud ahaan loo eego labada gobol waxaa muuqata in xiisadu weli taagan tahay. inkastoo maalmo hore ay jireen dadaalo nabadeed haddana wararka cusub waxay muujinayaan in weli la isku hayo meelo badan.
bulshada rayidka ayaa noqotay kuwa ugu nugul xaaladan. waxay ka walaacsan yihiin barakac suurtagal ah, hakad ku yimaada ganacsiga, xirnaashaha wadooyinka, saamaynta adeegyada bulshada iyo kororka cabsida shacabka. ganacsatada ayaa sheegay in xaaladdu saamayn ku yeelatay dhaqdhaqaaqii ganacsiga. gaadiidka xamuulka qaada ayaa la sheegay inay taxadir dheeraad ah samaynayaan. qiimaha badeecooyinka qaarkood ayaa laga cabsi qabaa inuu sare u kaco haddii wadooyinka qaar ay xirmaan. xoolo-dhaqatada ayaa sidoo kale ka walaacsan in dhaqdhaqaaqyada hubaysan ay saamayn ku yeeshaan daaqii iyo biyihii ay isticmaali jireen. odayaasha dhaqanka, culimmada iyo waxgaradka ayaa marar badan ku baaqay in colaadda lagu dhammeeyo wadahadal. waxay ku celceliyeen in shacabka labada dhinac ay muddo dheer wada noolaayeen. waxay ku baaqeen in la joojiyo hadallada hurin kara colaadda. sidoo kale waxay codsadeen in dhallinyarada laga ilaaliyo dagaal cusub. haddaba maxaa laga filan karaa? falanqeeyaasha siyaasadda waxay qabaan 3 suurtagal. midda koowaad waa in xiisaddu sii kororto haddii abaabulka hubaysan uu sii socdo. midda labaadna waa in odayaasha dhaqanka ay ku guulaystaan qaboojinta xaaladan. midda saddexaadna waa in maamulka iyo dhinacyada ay dib ugu laabtaan wadahadal. mustaqbalka dhow waxa uu muujin doonaa jihada ay xaaladdu u dhaqaaqi doonto. gabagabadiina xaaladda awdal iyo salel waxay weli u baahan tahay feejignaan iyo dadaal nabadeed. wararka laga helayo deegaanka geerisa, heemaal iyo sidoo kale deegaanada kale waxay muujinayaan in xaaladdu tahay mid xasaasi ah, balse waxaa muhiim ah in si taxadir leh loo xaqiijiyo xog kasta oo la baahinayo, gaar ahaan marka ay ka soo baxdo baraha bulshada ama ilaa aan si rasmi ah loo xaqiijin. waxaan sii wadi doonnaa la socodka wixii ka soo kordha xaaladan. waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonnaa xog kasta oo cusub marka ay ka soo baxdo ilo lagu kalsoonaan karo. guud ahaan daawadayaal, warbixinteennii intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa. waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusub tahay inaad janalka sabscribe inoo saarto, muuqaalka inoo laaggarayso, asxaabtaada la wadaagto, aragtidaadana aad inoogu soo gudbisa qaybta faallada. mahadsan idiin.